madaxweynuhu horta waxa uu sheegtay khudbadu waa dheerayd calaacal badan baa ku jiray in la mucaarado inay khalad tahay haddii aan la ku rooyahay waana la caayaa buu leeyahay aflagaado madaxweyneena xasan sheekh oo 67 jir sanadiisu tahay madaxweyne horena soo maray waa ninkii miidiyaha la taagnaa farmaajo naagaad fudhay baad ilma ka dhalaysa sida markaan leeyahay de luqada xamar looga hadlo I don't know laakiin gobolada aanu ka imid iyaga Soomaali dhaqanka yaalahi raggu inta wixii ka sareeya buu iska xifaareeya ama ka wada hadla waa xudunta wixii ka sareeya wixii ka hooseeya kama xifaaltamo iskama dhacaayadeeyo kama kaftamo adoo madaxweyne soo maray oo aan ahayn kabtaayigu meesha tafariyo meesha dadka tuuriya aan ahayn madaxweyne Soomaaliyeed kale adoo wax ka sheegaya ninkii yiri baad ahayd naaga furtay baad ilma ka dhalaysa hadalku waa margi waa dhinac loo jiito dad badan oo Soomaaliga dhibayana waa jiraan ninkii waxa sameyn jiray mucaaradnimada tiimkiisa inta adaab la dhihi jiray farmaajo waa mareexan ayaa maanta nooga sheekaynaya mucaaradnimadu inay wax xun tahay arskud madaxweynuhu sidoo kale waxa uu ka hadlay kelmad ah tuugnimo midda aan raba maanta inaan ka jawaabana waa midda ilma adeerayaal fariintaasi qaan bay ku tahay iga gaarsiiyay madaxweynuhu si shargaray madaxweynuhu wuxuu yiri tuugnimo nin hanti dawladda dhacay kii qariya wuxuu yiri kii adiyaal ku reey mas'uul dawladeed oo qariyana waa tuukalkal markaanti baan kaaga ahay hanti dawladeed wixii dhacay ay tuug yihiin tuug waliba ku xun yihiin laakiin madaxweyne bas dadkan shacabka dhageyso anigu kaaga jawaabayo su'aashe madaxweyne marka islaantaadi marwadaadi madaxweynaha marwadayadi weeye waa marwo Soomaaliyeed waa marwadii qaranka markay dadkii ummadii Soomaaliyeed xoolahoodii iyo dhulkoodiba halkaan gelisay oo xagga gelisay oo saa dambiil ugu guratay shaatigaagana ay wax ku dhacayso adiguna aan la ogtahay adiga naagtaada maxay kugu yeernaa madaxweyne naagtaada adiga ya naagtaada maxaan kugu yeernaa madaxweyne inaan ku cayna marno inaan ku gafna marno maxaad raali ka tahay adigu oo aan kugu yeernaa su'aalan ku weydiinay shacab weynow maxaan ugu yeernaa waxa ooyaya waa hooyo Soomaaliyeed ila qabiil maaha adiga kula qabiil ma bal laga yaabaa in asay qabiil tahay waxa laga dhacay dhul banaan oo dawladdu lahayd oo xasan waagi hore iyo naagtiisu dhaceen farmaajo yimid oo ka soo celiyay oo dadkii dajiyay kadib buu soo laabtay soo caraysan oo yiri farmaajo waa tagay aan soo laabtay yaa ka celinaya naagti baa u timid islaantiisa u timid cagaf bay gelisay waa ex control buu keenay dhulku waa kuwa hooyooyin Soomaaliyeed baa ooyaya meelay caruurta geystaan ma haystaan madaxweynuhu waa kii u dhaartay dadkan wixii dayacan inuu meel geyn lahaa xaq wuxuu u leeyahay qofkii Soomaaliya muwaadin Soomaaliyeed dayacan hadduu waayo meel u geeyo inuu soo kaxayo dhaho madaxtooyada ila deg waxa uu leeyahay waa hadii damiirku shaqeynaya weey caalamka dawladdu maxay oo adeegaha shacabka weliga ma aragtay dad leeyahay dhulkii dawladda waa laga saaraya dhul lama haystaan meel deegaan ma haystaan wax geel loo saaraya marka miyaysa dadka u dhalan yaa xil ka saaran yahay hadaysan xalad dawladda ku jidhay oo hadii aan la ku roon yahay laga saarayo yaa xil ka saaran yahay inuu baylaha ka xareeyo dadka u dhaartay ma qabiilkeeda u dhaartay xasanada u dhaartay islaantaadi weeyana waxa dhulkiina gadanaysa hadii aan la ku roon yahay dadkiina dayacaysa adiga islaanta maxaan ku yeernaa marka tuug tabada goysa oo aan islaam ahayn oo munaafiqa in lagu yeero afkaaga raali iga tiri adaana yiri tuug waxaan ahayn lagu yeeri karo adiguna tuug baa tahay islaantaaduna waa tuugo ee ummadda dhibka ka daa madaxweyne ku sacbin mayno ka taar sagaalida ku garaacmeen
mucaaradnimada shalay markaad mucaaradka ahayd ee aad farmaajo waama reexaan kacaad lahayd intii aad oran jirtay ka badan oran mayno bal qaybtood waa la xishoonaynaa qaybtood waa la xishoonaynaa naagtaada isfudheen iyo ilmaha ka dhashay ku oran mayno xaasha wajud waa wixii aad oran jirtay adu naag qabta ilmaha ka dhalaysa madaxweyne aad oran jirtay annaga ku oran mayno balse waxa la xadayaan u jeedno gacantaan kugu tilmaamaynaye madaxweyne isku xishood madaxweyne Yaxya 4 sano hal sano ay barba hadda sii gudubtay ma waxa rabtaa inay nagu dhamaysid adoo khudbaynaya in waqtigu dhaco hebel waa toog hebel waa toog musuq aan dagaalamayna oo musuq adu ka hadlo adu ku dhabaad yaal dagaalamaysa maadaas dagaalamaya madaxweyne madax bas ka dhufad intaas jaradu adu madax isgo tu ka weyn ma jiro islaantaada dumar kale islaantaada ugu tuugsan ugu big ah ragana ugu tuugsan sababta adaa shaati ba ku dhacaysa shacabku ay ka baroonaya anagu waxaan ma joogo muuqaal lama soo duubin islaanta ooyaysan hooyaday ma aha adayba ku xigtaayo aday qabiil kula tag balse xaq baan u leeyahay inaan u hadlo warkeedana fogeeyo oo aan ku soo gaarsiiyo madaxweyne tuuganimada guriga ka bilaabanaysa musuqo guriga uu ka bilowdaa islaantaada tuuga adigii baa tuuga gabadhaadii baa tuuga wiilkaagii baa tuuga sodohada tuuga sodoga baa tu wixii adaa isku meeray madaxweyne adoo xishoonaya marka dadku waa dad wax fahmay waa ku yaqaanaan in hebel hudaan in culus way ku yaqaanaan familkaaga yaqaanaan magacaagii shaadkaaga wax ku dhacaya ama dhihi kara ama islaanta wax dhacaysa ma ogi hooyada qaylinaysa ex control ka qaylinaysa warkeeda ma maqlin ama dhahaysa inta hadda dhahaysid soo hadal hadii kalena tuug aan nasab ahayn ee umro dooxa ee hadii alla ku rooyahay aan waxba reebayn ee ayaxa ee dirindira ee kud iyo qanca baata ilaahay baan marxaanti gashanaya in shacabka Soomaaliyeed inaan dambi laga qorayn inaan tuug ku iraahdo adiguna tuug tahay islaantaadu tuuga tahay kana la labayn mayo intaan adiga ku raali galin lahaa shacabka inaan raali galiyo xaq u leh xasan marka khudbadaadii intaasaan ka ayri tuugan adiga ahayna ma jiree marka hore adigu iswaani isxisaabi kadibna umada xul sheeg sanadkee laba sano wax dhimaan ku hadayna waxaad ku talagashay ku dhameysatid khudbad xagee ka dhacday tuug ba xaga maray xagee ma tuug ma aragtay ma nugu dhameeyo waa anaguna marka aad si daagan soo dhigeen mucaaradka shalay ahayd mid la mid aan nahay waliba waa ka naastahanahay annagu waxaan garanaynaa dawladnimada iyo mucaaradnimada iyo adiga shakhsiyadda kala saareen Soomaaliya mucaaradku ma ay dawladda khawaarijna u soo raacay mayo sidii shalay MBB du khawaarijta oo safnaayeen anu khawaarijta leeyahay inta saxaafada leeyahay ku si fogaan mayo العدالة waxay u yeedhaan u yeera iyo madaxa furan waxay soo bandhigeen shalay misodaraad video waxa lagu soo qoray khawaarij waa baaxsooynaayay khawaarij waa jabtaye ma af iyo niiko ba khawaarij lagu jibinaya waa kana ayadoo screen shoodan ka qaadayna العدالة soo dhigay iyo heerada madaxa furan video ay ku faanayaan boqorta video waa kane ila daaway ku faanayaan waa tahay video-ga marka la soo bandhigay oo MBB da loo qaybiyay oo la leeyahay Soomaaliya khawaarij baan ku abaasanayna video-gaasi YouTube ku jira asagoo 5 bilood ka hor 5 months ago ay ku qoran tahay channel Kenya ayaana soo gashtay Kenyana waxay ku faanaysaa inay qolo terrorist argagixisa ay la dagaalamayso ayadana cadaynteedii ma laga rabaa mise waxa la leeyahay benta way waa tane